ciyaartoyda xulka qaranka dalka ayaa bilaabay isticmaalka aaladda lagu ogaanayo fayqabka heerka tababarka ee loo yaqaano on-device monitoring physical fitness performance waxaana aaladan horey u isticmaalay garsoorayaasha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta macallin Maxamed Cabdulle Faryare oo kamid ah tababarayaasha farsamada xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegaya in qalabkan uu wax badan ka bedeli karo badqabka iyo horumarka ciyaaryahanada xulka qaranka. qalabkan waxaa loogu talagalay in lagu kontrolo ama lagu ogaado heerka physical condition ee ciyaaryahanka ama qof ciyaaryahan waxa la qof ka soo sportiga ka shaqeeya macnaha garsooruhu ciyaartu qayb ka yahay ciyaartu qayb ka yahay marka dhamaantood loogu talagalay taasoo macnaha muujinaysa data sax ah qofkan inuu physical inuu qof fiyo yahay oo standard laga rabo sababtoo ah maanta waxa walba cabir leeyihiin ciyaaryahanku markuu 90 daqiiqo dheelo waxa jirta masaafo laga rabo inuu gaaro oo cover gareeyo ciyaaryahanka waxa la rabaa heerka speedkiisa heer qorna jira adduunka halkiisa kan macnaha inta lagu ordi karaa Hussein Bolt kooy 10 orda ninka footballka dheelo kooy 10 laga rabo laakiin waxa jirta masaafo uu ku qasbay oo ah 8.5 ciyaartoyda xulka qaranka ayaa iyagana soo dhaweeyay qalabkan casriga ah iyagoo madaxda xiriirka kubadda cagta kaga mahad celiyay dadaalka iyo horumarka ay la garab taagan yihiin. horumar zaad weyn waxaan u mahad celinaynaa xiriirkeena kubadda cagta Soomaaliya sidee rabaan in wadanka horumar sii gaarno qalabkan qalab casri waaye insha Allah waxaan rajeynayaa inaa hada hor socodka u soconaa meel ka sii fiican gaari doono. waxay noo tahay anaga dhiirigelin fiican waayo qofka juhdiga iyo dadaalka uu soo bixiyay ayuu ku ogaanayaa xiriirkeena sida ay mar walba noogu hayleeyeen waa ugu mahadnaqeynaa anagana mar walba waxaan diyaar u nahay inaan wadankeena horumarino. waxaan lagu soo kordhiyay qalabkan oo noo xiran oo lagu ogaanayo tababarkaaga iyo heerka maraysi iyo waxa aad sameysay dhan uu sheegaa wallahi aad u faraxsanahay maadaama ay noo keenan qalabkan uu nagu cusub yahay waxay noo tahay horumar wanaagsan oo ay qaranka u tahay tan waxay qayb ka tahay dadaalka ay sameeyeen xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ciyaartoyda neeftooda ay lagu tijaabinayo horumar fiican oo dalkeena ku soo kordha waaye 3 bilood ka hor ayay ahayd markii waaxda garsoorka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ay bilaabeen isticmaalka GPS hadaba maxaa iska bedelay heerka garsoorayaasha Soomaaliya maxayse ku kala duwan yihiin ciyaaryahanada iyo garsoorayaasha marka ay isticmaalayaan qalabkan waxa sharaxaad ka bixinaya madaxa tababarka garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta macallin Cabdi Cabdulle Baasale. qalabkan garsoorayaasha iyo ciyaartoyda labadaba waa qosaysaa siiba ciyaartoyda ay badan oo sii qosaynaysaa oo sida aad ka arkaysid garsoorayaasha waxa waaye physical fitnesskooda in lagu ogaado kaliya dadkan kalena waxa waaye in ay nooc lagu ogaado qalabkan waa qalab casri ah oo ku soo kordhay adduunka ku soo kordhay marka faa'iido weyn ayaan isleeyahay ciyaartoyda ay u leedahay oo muhiimad aad iyo aad u qiimo badan ay leedahay. kubadda cagta iminka waxay noqotay xisaab ku dhisan maskax talabadan waxay kor u qaadaysaa yoolkan horumarinta kubadda cagta iyo kobaca diilada dhalinyarada matalaysa Ocean Star waxa sidaas goobjoog ugu waramay macallin Bashir Hayford oo u dhashay wadanka Ghana ahna hogaamiyaha xulka qaranka. Their speed, their strength, the BP, the everything. Because this time football is scientific. You have to at least know the player you are using. You don't have to overload the player in terms of physicality. So if you're able to get the physical makeup of the guy or the player, you know how to design training this for them. So after this one, we'll take everybody's record and I will see those who need improvement and those who in other aspect of their physical fitness. inkastoo qalabkan casriga oo xiriirka kubadda cagta ka hirgeliyay caasimadda Muqdisho sanadaha soo aadan maxaa kaga qorsheysan maamul goboleedyada waa kan macallin Baasale oo ka jawaabaya arinka. xiriirka Soomaaliyeed waa ku wargelinaynaa inaan la tagno gobolada dalka inaan tagno markii waqtiyada mataqaana ciyaaraha gobolada isu diyaarinayaan inaan tagno oo maamul goboleedyada isu diyaarinayaan inaan tagno oo gobol kasta aan 5 maalmood 7 maalmood aan ku soo mataqaana training sameeyo lagu soo sameeyo la ogaado sidii mataqaana garsoorka aan ogaanayno insha Allah taala asagana waa qorshaha noogu jira garsoorayaasha iyo ciyaartoyda inaan wada tagi doono meel walba ay jiraan gobolada dalka Soomaaliya oo dhan.